xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ayaa deeq bustayaal ah iyo agab kale gaarsiiyay ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalkii maalintii shalay ahayd deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhaxmaray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa Puntland oo xaaladooda caafimaad lagu daweynayo cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Xildhibaan Bidhi oo deeqdan ku wareejiyay abaanduulaha ciidamada qaranka Soomaaliland ee qaybta 12aad ee gobolka Togdheer ayaa shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamadooda ku sugan jiidaha hore isagoo fariimo digniin xambaarsan u diray maamulka Puntland. halkan aan joogno dhakhtarkii Burco waxaan alaabtan ku wareejinayaa abaanduulaha ciidanka qaybta 12aad ee gobolka Togdheer taliya kayd oo xeegan ugu jira runtii hawsha ama difaaca dalka. waxaan ku wareejinayaa halkan dhaawacii ku sugnaa halkan agab aan ugu talagalo bustayaal iyo biyahaasa ayaan ku wareejinayaa oo anigu aan runtii ugu tabarucay. waxay iga tahay runtii inaan aniguna la qaybsado dareenkayga inaan la qaybsado ciddii dhibi ka soo gaadhay ama dhaawac ka soo gaadhay. intaa halkaa jiiftana ilaahay caafimaad siiyo. waxaan runtii u soo jeedin lahaa ganacsatada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Soomaaliland inay runtii u diyaar garoobaan difaaca qaranimada Soomaaliland, inaan dalkeena difaacno, inaan dhulkeena difaacno, inaan xuduudeena difaacno, inaan cadawga ka difaacno dhulkeena. aragtaan oo layna soo gardaraystay inagoo ciidankeenu ku sugayay xuduudii dhulkeenii iyagoo ku sugan ayaa weerar gardarada lagu soo qaaday salaad hore. waxba kamay faa'iidin, waa ogtiin oo aad baa runtii ay ugu hoobteen. hadda waxa la sheegaya ninkii kaarahan la soo qabtay nin baa lahaa, ninkii waa haysaystay qoladii ka soo kareysatay ee garowga joogtay. waxaan leenahay saddexdan inay soo kaashaday inta ka dambaysa, hadday tahay Cabdiweli, hadday tahay Gaas, iyo hadday tahay Morgan, iyo hadday tahay Farmaajaba. waxaan leenahay kiidii ka weynaa baanu ka saarnay dalkan oo adeerkiin. haddaa jooji weydaan gardarada gaalkacaya la isugu imanaya, garow la isla dhaafay gaalkacaya la isugu imanaya. annaguna diyaar baanu nahay inaan duleeska gashanno, inaan dalkayga difaacno. dhanka kale abaanduulaha ciidamada qaranka Soomaaliland ee qaybta 12aad ee gobolka Togdheer Kayd Cismaan ayaa xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi uga mahadnaqay deeqdan uu soo gaarsiiyay ciidanka qaranka. xildhibaankaas wuxuu ugu deeqay shakhsiyadiisa, wuxuu ugu deeqay bustayaasha iyo biyaha alaabta halka taala ugu deeqay ciidanka. qaybo kale oo ka badan oo kalena insha Allah la kariimino keeno ayaan rajaynaynaa. aad iyo aad buu xildhibaanku u mahadsan yahay, waan uga mahad celinaynaa sida danta guud uga qayb qaato, in shakhsi kastaba uga qayb qaato ayaa loo baahan yahay. waa xilkasnimo iyo mas'uuliyad iyo maxaan ku dhahdaay iyo dareen shakhsiyad weeye. saasaa loo baahan yahay in qof kasta oo reer Soomaaliland uga qayb qaato xaaladda guud ee jirta, inuu uga qayb qaato. xildhibaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.